ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo kamid ah madaxda ka qayb gashay xafladda caleema saarka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa jeediyay khudbad cajiib ah isagoo ku hadlayay luqadda Ingiriiska iyo af Soomaaliga. Abiy oo si weyn loogu saabiyay markuu uu khudbadiisa ku soo daray erayo af Soomaali ah ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah gaar ahaan xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya. waxa iga go'an inaan sii wadno iskaashiga labada dal iyo dadka walaalaha ah ayuu yiri khudbadiisa Abiy Ahmed isagoo ku hadlayay afka Soomaaliga. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inuu Soomaaliya u rajeynayo nabad waarta iyo barwaaqo isaga oo erayada sidoo kale ku yiri afka Soomaaliga. waxa uu rajeynayaa shacabka Soomaaliyeed nabad waarta iyo barwaaqo ayuu sii raaciyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. حنبليو مدني مدحويني وحن كو رجينيا إن الله إلكي كوغاسترو وحن رجينيا شعبك سوماليا نبدوارتا إيو برواقو فإنغا غوان إنانسي هجاينو iskaashiga labada dal iyo dad walaalaha Soomaaliya ha noolaato Ethiopia ha noolaato. Thank you very much. ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay inuu la shaqeyn doono madaxweynaha cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayna isku kaashan doonaan darisnimo iyo walaalnimo. Soomaaliya ha noolaato Itoobiya ha noolaato ayuu ku soo gabagabeeyay khudbadiisa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa 5 sano ee la soo dhaafay ahaa saaxiibka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna iskala tirsanaayeen isbahaysiga 3 geesoodka ah Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea.